بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق قائل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. barnaamijka badbaadada bulshada waxaan ku soo qaadanaynaa casharkeennan kuliyaat اlkhamsi waxa la yidhaahdo ama daruuriyaat اlkhams, shanta shay oo qof kasta la doonayo inuu dhowro oo uusan ku xadgudbin, oo diinka iyo nafta iyo maalka iyo nasabka intaba ah. mid ka mid ah ayaan isku baraarujinaynaa si mujtamaceennu ay uga badbaadaan dhibaatada uga imaan karta inaan shaygaas ilaahay amray in la xifdiyo ee uusan xifdin qofku. maxaa yeelay mujtamaca waxa nabadgelyadiisa wax u dhiba oo nicmadiisa iyo khayrkiisa iyo horumarkiisa wax u dhiba waxaa ugu weyn nabadgelyo la-aanta ugu weyn. sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa alamnu waalistiqraar asaasu nicam. nabadgelyada iyo sugnaanshuhu nicmooyinka saldhigooda weeye, asaaska ah. taas waxaa ka soo horjeeda marka oo buriya dembiyada la gelayo, cuquubada iyo dhibka ka imaanaya. qaybo ka midana aan ka soo hadalnay. kuliyada maanta aan rabno inaan ka hadalno waxa weeye waxaa la yidhaahdo alqadf. qof dhowrsan, ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado, oo lagu tilmaamo inuusan dhowrsanayn, qadafaa lagu yidhaahdaa af carabiga. kelimadaas asalkeedu wuxuu ka yimid dhinaca luqadda carabiga marka la fiiriyo alramyu bilquwa, wax xoog loo tuuro oo loo gano si awood leh ayaa asal ahaan loo isticmaalaa kelimada asalkeeda. laakiin sharciga islaamku wuxuu ku tilmaamaa markuu ummadda uga digayo qof dhowrsan oo la yidhaahdo ma dhowrsanid, ama ha loogu dhawaaqo ha la yidhaahdo yaa zaani, midka zinaystow, ama yaa zaaniya, qofka dumarkaahoo zinaysatay, ama ha la yidhaahdo yabna zaani, qofka zinaystay inankiisow. waa isku mid waxyaabahaas oo dhan dhammaantood hal meelay u wada socdaan. ama qofkan aad la hadlaysid ayaad ku tilmaamaysaa inuusan dhowrsanayn, ama waalidkiis oo asalkiisa ah yaad waxaad ku tilmaamaysaa inuusan dhowrsanayn. waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha masaa'ibta waaweyn oo mujtamaca haysta, oo qaarkoodna ku kaftamayaan, qaarna qaarka kale ay ku liidayaan ayay ka mid tahay, waana muhlikaadka qayb ka mid ah. qadafka waxa la yidhaahdo, ama qof dhowrsan oo la yidhaahdo ma dhowrsanid, waa xaraam. xukumkiisu muxaram weeye. shaygaas shareecada islaamku ma bannayn, marka koobaad. marka labaad, taxriimkiisu wuxuu ku sugnaaday adilada shareecada islaamka qaybaha ugu waaweyn: qur-aanka, xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa ah, iyo isku raaca ahlu cilmiga ee ijmaaca la yidhaahdo. saddexdaba waa lagu xaaraantinimeeyey. shay aad u xun oo bashica weeye, oo aan shareecada islaamka ku bannaanayn. qof kastaoo mu'minana la doonayo inuu ka digtoonaado oo carabkiisa uu ka ilaaliyo. waxa la yidhaahdo qadafka asal ahaan wuxuu u laabanayaa waxa la yidhaahdo addacnu fil ansaab. qofkan markaad tidhaahdi zaani baa tahay, ilmihiisu inaysan nikaax ku dhalanin oo dacni uu nasabka asaga ka farcamahay uu leeyahay ayay noqonaysaa macnaheedu. haddii aad tidhaahdid ibnu zaani baa tahay, qof zinaystay inankiisna, waxay iyaduna u dhigantaa waxaad wax ka sheegaysaa waa asalkiisii. marka ama faraca ka dur qofka, ama asalka ka dure, marba haddii aad qadaf samaysay, dhibka koobaad oo uu leeyahay waxa weeye waa addacnu fil ansaab, nasabka qofka oo la liido oo la dacniyo, la duro.
dacnu ansaab waxa la yidhaahdaana waxay sabab u noqdaan qofkaasi inuu gaalnimo marka dambe la yimaado. waa sababun min asbaabi alkufri, gaalnimada waxyaabaha dadka gaarsiiya yaa dacnigaasi ka mid yahay, nasabka qofka wax laga sheego. wuxuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, ithnataani fi nnaasi humaa bihim kufr, laba sifo oo dadka ku dhex sugan gaalnimaa ku sugan buu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. addacnu fi lansaab, durid la duro dadka nasabkooda oo la yidhaahdo hebel dhalad maahan, hebel ma ahan qof nikaax ku dhashay, waxyaabaha lamidka lagu tilmaamo waa gaalnimo wax keena sida xadiidku tilmaamayo. midda labaadina waxa weeye waniyaaxatu cala almeyd, qofka dhintay oo loo ooyo oo laysku ballansado in la wada ooyo oo dadka lagu booriyo ooyintaas inay sameeyaan, oo anniyaaxatu cala almeyd la yidhaahdo, iyaduna waa sifo xun. marka dambena waxay keenaysaa qofku inuu kufri ou ku dhaco walciyaadu billah, sida xadiidka misdaaqiisu yahay. addacnu fi lansaab waxa la yidhaahdo oo qadafkani ka mid yahay, waxaa nabigeenu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, sababun min asbaabi aljaahiliya, umuurtii jaahiliga jiri jirtay ayuu ku tilmaamay mid ka mid ah nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fi lxadiidi ashariif, arbacun fii ummatii min amri ljaahiliya laa yatrukuunahunna, afar ummadayda ku dhex sugan waxay ka mid tahay jaahiligii wixii laga dhaxlay, sifatun min sifaati lmuslimiina maahan. alfaqru bilaxsaab, faanka lagu faano mayrax macaanka ama nasabka, oo la yidhaahdo anaa kaa nasabsan, adugu nasab ma tihid, reer hebel baan ahay, adugu laakiin reer hebeloo liidataa tahay. waxyaabaha noocaas ahoo nasabka lagu faano waa wax jaahiligii laga dhaxlay, islaamkuna uusan qabin. islaamka waxaa dadku ku kala sarreeyaan ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala, qiimana qofku uu ku leeyahay taqwada ilaahay. qofba qofka uu ka taqwo badan yahay waa uga dhow yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, waana ka khayr badan yahay. ina akramakum cinda allaahi atqaakum. midda labaadina waxa weeye addacnu fi lansaab, nasabka oo la duro, iyaduna waa amru ljaahiliya. walistisqaa'u binnujuum, xidig hebel ayaana waraabinaya ama nala ku waraabinayaana, oo xidigaas muxuu ahaa, xidig hebel hadduu halkaas soo istaago roobaa da-aya, hadduusan soo istaagin oo haddiiba dhacana roob la-aanaa dhacaysa. waxyaabaha noocaas aho xidigaha lagu waraab dalbo, iyaduna waxay ka mid tahay amruljaahiliya. wanniyaaxatu cala almeyd, midda afaraadina waxa weeye tii aan soo sheegnay oo ahayd ooyinta loo ooyo dadka dhintay. maadaama marka nabigeenu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, amrun min umuuri ljaahiliya, jaahiligii umuurtii laga dhaxlay, haddee islaamka jaahiligii ka dambeeyey. alislaamu yahdimu maa qablah, islaamku wax alla wixii dhaqan xun ahaa oo ka horreeyey wuu dumiyaa. waxaa la rabaa marka islaamkaagu inuusan noqonin mid sheegashaahoo aad la mid tahay jaahiligii adoo jooga. maxaa yeelay sifaatuljaahiliya mar haddaad ku dhaqantid, jaahiligii adigu waa isleedihiin, waxaad iska leedihiin dhinaca dhaqanka. addacnu fi lansaab, nasabka la duro oo gaar ahaan ah qadfulmuxsanaadka, qofka dhowrsan oo lagu tilmaamo inuusan dhowrsanayn, nin iyo naag wuxuu raba ha ahaadee. qur'aanka kariimkaahi wuu adkeeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala 3 xugum ayuu u sheegay qofka qof ku tilmaama inuu zinaystay asagoo qofkaasi dhowrsan yahay. waaladiina yarmuuna almuxsanaat, kuwa ku gemaya dadka dhowrsan zinada iyo waxa la midka, uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa, oo 4 markhaatiya aan la imaanin, fajliduuhum 80 jaldah, 80 jeedal ku dhufda ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. xukumka koowaad oo ilaahay u sheegay waxa weeye qofkii qof ku tilmaama inuusan dhowrsanayn 4 markhaatiyana aan la imaan, oo arrintaas uu sheegayo inay dhab tahay caddeeya. xukumka koowaad oo ilaahay u sheegay waxa weeye 80 karbaash in lagu dhufdo. xukumka labaadna waxa weeye walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada, qofkaas inaan weligiis markhaati aan loo oqonsan inuu markhaati furi karo, cadaalad darri in lagu tilmaamo, weligiis caadil aan lagu tilmaamin oo uusan markhaati gelin. waa sifada labaad
wa ulaa'ika hum lfaasiquun dadka dhowrsan yidhaahda ma dhowrsanidinna iyagoon markhaati afara la imaan waa kuwa ilaahay daacadiisa ka baxayo faasiqiina yaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. aayaddaas 3 xugumaa rabbi u sheegay, mid walbaba goonideeday waxay u tilmaamaysaa ficilka qofku sameeyey inuu aad u xun yahay. waa jeedalka 80 ah, iyo qofku weligiisba inuusan markhaati gelaynin, iyo inuu faasiq yahayo ilaahay daacadiisii uu ka baxay subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo naska qur'aanku tilmaamaya qofkii muxsanaadka dadka ah gabdhaha dhowrsan ku tilmaama inaysan dhowrsanayn, ragguna waa ku xugume adduun iyo aakhiraba in ilaahay lacnadiisu ku dhacayso, qiyaamaha markuu tagana la cadaabayo. ina aladiina yarmuuna almuxsanaat, kuwa ku gamaya zinada dadka gabdhaha dhowrsan, alghaafilaat ee halmaansanba zinada iyo waxa la midka ah qalbigooda aysan weligood ku soo dhicin, almu'minaat ee ahlu iimaanka ah. 3daas sifo gabdhaha isku darsaday dadka ku tilmaamaya inaysan dhowrsanayn, lucinuu fi dunya waalaakhira, waxaa ilaahay naxariistiisa laga dheereeyey adduun iyo aakhiraba. walahum cadaabun cadiim, cadaab weynna wuu u sugnaaday dadkaas raamiintaahoo ku gamay dadka dhowrsan dhowrsimo la'aanta. aayaddaani waxay tilmaamaysaa lacna abadiya fi lkownayn, fi dunya wa fi laakhira. qofkaas ficilkaa sameeyey oo hadalkaas xun ku yidhi dadka dhowrsan oo ku tilmaamay ummaddaas dhowrsan inaysan dhowrsanayn, adduun iyo aakhiraba lacnada ilaahay ayaa ku dhacaysa. lacnadu macnaheedu waxa weeye alibcaadu can raxmat illaah, adduun iyo aakhiraba in ilaahay naxariistiisa lagaa dheereeyo. intaas laguma dayni, ziyaada lagu daray, walahum cadaabun cadiim, waxaana u sugnaadaa dadkaas cadaab weyn. cadaab ilaahay oo ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala inuu weyn yahay ayaa qofkaas u sugnaaday, yaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. haddaad fiirisid aayaddaas, waciidka shadiidka ah oo ku soo arooray adduun iyo aakhiraba in ilaahay naxariistiisa lagaa fogeeyo kow, iyo in cadaab weyn oo lagugu cadaabi doono laguu diyaariyey, waa 2 shay oo aad u culus oo ilaahay u tilmaamay subxaanahu wa tacaala. qofka adduunka dembigaas la yimaada jazihiisa, jazaaءun fi dunya wa huwa lacnatu alabadiya, wa jazaaءun fi laakhira wa huwa alcadaabu alcadiim. adduunka intuu joogana lacnadaasaa ku dhacaysa, aakhiro markuu tagana cadaabkaas weyn ayaa muxuu ahaa sugaya. qof mu'mina oo ahlu iimaan ah oo ahlulislaam ah oo muslim mu'mina ah ma u bareeri karaa dembi ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhiraba lacnad aho ilaahay naxariistiisa qofka laga dheeraynayo inuu ku dhacayo, cadaab weynna ilaahay agtiisa loogu hayo loogu kaydaynayo? ma sahlana arrintaasi, wax lagu tallaabsan karo ama fudud ma ahan. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidkii saxiixa ahaa oo barnaamijka markaan soo bilownay aan soo akhrinay, ijtanibu 7 almuubiqaat, ka dheeraada 7 dembi oo halaagta dadka la yimaada. wuxuu ku daray nabigeennu calayhi salaatu wasalaam, waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat, gabdhaha ahlu iimaanka ah oo haddana ahlu dhowrsimaha oo cafiifaadka ah oo dhowrsan oo aan dembigaas lagu tilmaamayo gelin oo lagu tilmaamo inay dembigaas galeen ayaa ka mid a 7 dadka halaagaysa. axaadiista iyo aayaadka badankoodu markaad fiirisid tacbiirka ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka cabireen sala allahu calayhi wasalam, qadafka waxay ku xukumka waxaa lagu dhisay gabdhaha lagu tilmaamo inaysan dhowrsanayn, laakiin ragguna waa ku xugum. xaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahu llahu tacaala, saaxibu fatxi ilbaari, bukhaariga sharxiisa wuxuu kusoo guurinayaa ijmaacu inuu ku guntamay ragga qadafkoodu inuu la mid yahay dumarka qadafkooda, laakiin nusuustu waxay dumarka uga cabirtay dhinaca dumarka ayuu kusii xeel dheer yahay qadafku oo uu kusii foolxun yahay. sidaa darteeda nasku ka cabiray mooyaane dumarke ragga iyo dumarkuba waa wadaagaan. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu u tilmaamay. addacnu fi nasab oo qadafkan iyo wixii la xiriiraahi waxyaabaha ay leeyihiin oo aafaadka waxaa ka mid ah
alistidaalatu fii cirdi lmu'min, qofka walaalkaa ah oo ilaahay diinkiisa aad ku walaalowdeen, nasabkiisa oo aad aflagaadaysid ood carabkaaga ku sii daysid yaa ka mid a dhibaatada uu keeno adacnu fi nasab. taasina hadde waxay noqonaysaa qof ahlu iimaan oo aad dhibtay ood carabkaaga ku dhibtay. wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina. dadka dhibaya nimanka ahlu iimaanka iyo dumarka ahlu iimaanka oo ku dhibaya bigayri ma ktasabuu waxaysnaan kasbanin, faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina. dadkaasi waxay kasbadeen been abuurad iyo dembi cad oo aan ta'wiil lahayn ayay kasbadeen buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. waxaa ugu horeeya aayaddu waciidka ay ka digayso dadka la imaanaya ummadda muslimiinta nasabkooda wax ka sheegaysa oo ku tilmaamaysa inaysnaan dhowrsanayn oo waxaysnaan samaynin ku tilmaamaya iyagoo nuqsaaminaya ayaa muxuu ahaa ka mid ah. xadiid kale nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo istidaaladaas nahyinaya, inna min arba riba alistidaalata fii cirdi lmuslimi bigayri xaq. ribada waxaa kasii dembi badan qofku inuu carabkiisa ku sii daayo qofka muslimkaa nasabkiisa xaqdari. xadiidku wuxuu nahyinayaa carabkaaga inaad ku dhibtid qof mu'mina oo aad xaqirtid ood iskala weynaatid oo qadaf iyo cay iyo waxyaabo noocaasoo kala ahoo noocyaah aad ku tilmaantid. ribada inuu ka daran yahay dembigaasi ayuu nabigeenu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay alistidaalatu fii cirdi lmuslim, qofka nafsadiisa marka la fiiriyo xoolaha ribadu ay ka suurto gasho iyo naftiisa ama cirdigiisa waxaa u qaalisan cirdiga ayaa u qaalisan. marka maadaama cirdigu uu ka qaalisan yahay xoolaha, xoolihiina la yidhi ribaa geli karta, dembiga cirdigu waa ka weyn yahay dembigii xoolaha. macnaha xadiidku uu tilmaamayahay sidaas weeye. waxaa kaloo uu leeyahay adacnu fi nasab, duritaanka qofka nasabkiisa la duro. waxaa la yidhaahdaa qofka qaadifka ah oo dhibkaa samaynayaah laba dembiyo u dhexeeya, mid walbaana waa manhi oo sharciga islaamka kuma bannaana. waaqicun bayna alghiibati waalbuhtaan, been abuurad ama xan, labadaas midkooda u dhexeeya. labadoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala inay laba dembiyo xuxun yihiin qur'aanka kariimkaah ilaahay ku tilmaamay, wuxuuna amray in laga dheeraado. yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min adann, dadka ahlu iimaanka ahw ka fogaada in badan oo malaha ka mid ah. inna bacda adanni ihmun, malaha qaarkiis waa dembiyaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda, ha isjaasuusinina, hana isxamanin oo qaar yuusan qaarka kale xamanin. intaas ilaahay ku madayn subxaanahu wa tacaala. xanta foolxumadeeda wuxuu ilaahay ku tilmaamay qofku markuu qof kale xamanayo asagoo qofkaasi dhintay hilibkiisa asagoo cunaahoo kale. ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta, ma jecel yahay qof adinka in ka midihi inuu cuno walaalkiis oo meyd ah hilibkiisa? fakarihtumuuh, waa kahanaysaanuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. isla markaas haddana waa cunaysaan. maxaa yeelay kiibada waxa xanta la yidhaahdaahi waa dembi aad u xunoo qofkii hilibkiisa adoo cunayoo kale aad la mid tahay, waxaad u wanaagsanna ma ahan. marka waxaa wanaagsan qofku inuusan la imaanin waxa la yidhaahdo xanta oo dembiga weyn ah oo dhibaatada keenaysa. xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu ahaa, yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yu'min biqalbihi laa taqtaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratah yafdaxhu walow fii jawfi beytihi. yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yu'min biqalbihi, jamaacada dadka qalbiga aan ka rumaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin carabka ka rumeeyeyo, laa taqtaabu lmuslimiin, muslimiinta ha xamanina ayaa nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam. nidaha yeeritaanka
marka qof loo yeerayo hadduu qofkaasi qof sharaf leeyahay oo qof wanaagsan yahay nidaa'u tashriif nida la yidhaaha loogu yeeraa sida yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ahlu iimaanka ahow. iimaanku waa shay qaaliya, iimaankiyaa loo idaafeeyo dadka lagu tilmaamay. haddii sifadu sifo xun tahay oo qofku ku sugan yahayna nidaa'u tashriif nide looguma nideeye, waxaa loogu yeeraa wax tusinaya qofkaasi qof fiican inuusan ahayn, shaqo fiicanna uusan ku jirin. gaalada marka loo yeerayo yaa ayuhal kaafiruun ayaa la yidhaahdaa, kuwa gaalnimada ku sifoobow. waa sifo xun inay ku sugan yihiina yeeritaanka laftiisu muujinaya intaan la gaarin wixii loogu yeeray. tanina waa sidoo kale, nabigeena wuxuu yidhi xadiidkan calayhi salaatu wasalaam, yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yu'min biqalbihi. jamaacada dadka carabka ka rumeeyey xaqa laakiin aan qalbiga ka rumaynow. macsharka waxaa la yidhaahdaa jamaacada hal sifo ka dhexayso, hal sifa ka dhexaysa, ama dhalyaa ka dhexaysa, ama shaqaa ka dhexaysa, ama sifo kalaa ka dhexaysa. dadkan macsharka ah oo nabigu hadda u nidaynayo sala allahu calayhi wasalam waxaa ka dhexaysa in aysnaan qalban waqaalaban iswaafaqsanayn, oo carabkana ay iimaan ka sheegteen, qalbigoodana xumaani ay ugu jirto dadka mu'miniinta inay xantaan. waana sifo aada u xun. muslimiinta ha xamanina buu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, laa taqtaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim. ceebahoodana ha raacraacinina, maxaa yeeley qofkii walaalkiis ceebtiisa raacraaco inuu muujiyo qofkaas ceebtiisa ku talagala, asagana ilaahay baa ceebtiisa muujinaya, gurigiisa dhexdiisaba ceebtaas waa ku muuqatee. qiibadu wax aad iyo aad u dhib badan weeye. buhtaantuna hadda waa sidoo kale been abuuradka dadka ahlu iimaanka laguma yaqaano. aayad qur'aan ah ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah wa ulaa'ika hum lkaadibuun. waxaa beenta isku soo duwda dadka aan ilaahay aayadihiisa rumaynin, dadkaasina waa beenaalayaal buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka shaki la-aan waxaa ah qofka duraya dadka nasabkoodu inuu ku dhacayo labadaas dembi midkood, inuu ku dhacayo hadduusan labadaba ku wada jirin, walciyaadu billaah. waxaa kaloo adacnu fi nasab dhibaho ou leeyahay, fiihi adiyatun liwliyaai illaahi tacaala. dadka ilaahay agtiisa muqarabiinta ka ah oo ahlu cibaadada ah oo ahlu wilaayada ah cadaawadoodaa ku sugan, dhibkooduna waa ku sugan yahay. labadooda midkoodna kuma bannaana. wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddii qur-aankeedu aan soo marnay, waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina. in dhib ku jiro aayaddaasaa tilmaamaysa dadka sheegitaanka laga sheegayo iyo waxyaabaha dhibaya oo lala qaabilayo. maxaa yeelay shaki la-aan waxaa ah qofkii cirdigiisa iyo nasabkiisa wax laga sheego inuu dhibsanayo oo weliba dhib weyni ugu jiro. haddii marka sidaasoo kale uu qofku isagoo ahlu iimaana uu yidhaahdo dad kale oo mu'miniinahan wax ka sheegayaa, waxaa ku sugan mucaadaadka awliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofkii weli ilaahay cadow la noqda, nasku wuxuu tilmaamayaa in ilaahay la dagaalayo. xadiisu lqudsi saxiixa yaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb. qofkii cadow u noqda oo la collaytama ee weli aan anigu leeyahay, waxaan ogeysiiyey dagaal. waxaa la yidhi dunuubta ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala, dembi ilaahay ou yidhi waxaan ogeysiinayaa ama ogeysiiya dagaalkayga, waxaa ka jira laba dembi. mid waxa weeye aklu riba, ribada qofka cuna ilaahay baa u ballan qaaday inuu la dagaalamayo. fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih. dembiga labaadna waxa weeye mucaadaatu waliyin min awliyaai illaah. awliyada ilaahay qof ka mid ah haddaad cadow u noqotidna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu ballan qaaday inuu kula dagaalamayo. hadda ilaahay awalowsan bunduq iyo kuu soo qaadanaynin xabad, iimaankaa lagaa siibayaa. hadhowna markii aad ilaahay hortagtid ciqaabka ilaahay ayaa lagugu waarinayaa, dagaalkaaga weynina ma jiro. maxaa yeeley addoon daciifa oo waxaa tahay ilaahay u baahan subxaanahu wa tacaala kaalmihiisa, oo inuu wixii wanaagsan ilaahay siiyo, wixii xunna ilaahay ka koriyo u baahan ayaa tahay.
haddii marka ilaahay aad u baahneed uu kuu ballan qaaday inuu kula dagaalayo howl culus baa ku hortaalla, wax sahlan maaha. waxaa kaloo ku sugan oo dhib ah adacnu fi nasab, waxa la yidhaahdo alfuxshu wasabu, hadal xumada. axaadiista nabigu ay radisay calayhi salaatu wasalaam oo ay nahyisay, iyo carab dheerida badaa'at lisaan waxa la yidhaahdo, asabu cayda, noocyadaas oo dhan oo axaadiistu ay nahyiyeen ayaa ku sugan. wuxuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam iyaakum walfuxsh, ka fogaada fuxshiga waxa la yidhaahdo xumaanta, fa ina allaha tacaala laa yuxibu lfuxsh, maxaa yeelay ilaahay ma jecla fuxshiga, ma jecla rabbi subxaanahu wa tacaala. wala tafaxusha, in lagu hadlana ma jecla fuxshigaas. sidoo kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid kale ku tilmaamay mu'miniinta sifaadkooda qaybo aan ka mid ahayn. laysa almu'minu biddacaan wala allacaan wala alfaaxish wala albadi, qofka mu'minkaahi ma noqdo qof dadka nasabkooda wax ka sheega, ma noqdo qof dadka lacnada, ma noqdo dadka kale dadka muxuu ahaa ku xadgudba ee carabkooda u adeegsada ee sariiglaawayaasha la yidhaahdo, ka mid maahan mu'miniintu, ayuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka ahlu iimaanka sifaadkooda ka mid ma ahan adacnu fi nasab, nasabka in wax laga sheego, lacnadu ka mid maahan, carab dheeridu ka mid maahan. intaasoo dhani waa sifaatulfaasiqiin, dadka ahlu fisqiga oo aan ahlu iimaanka ahayn oon wanaagsanayn sifaadkooda wey. qofkii mu'minihi inuu ka fogaado wey. xadiid saxiixaynka waxaa nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka ahlu iimaanka in wax laga sheego inay tahay faasiqnimo. sabaabu lmu'mini fusuuqun wa qitaaluhu kufr, qofka mu'minka caydiisu waa daaca ka bixid iyo faasiqnimo, waa fisqi. wa qitaaluhu kufrun, la dagaalankiisuna waa gaalnimou yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. addoon daciifa adoo ah oo ilaahay u baahan subxaanahu wa tacaala, haddii aad daacadiisii ka baxday intaad adduunka joogtid, aakhira haddi xaggee baad naxariista ilaahay ku arkaysaa, kamana maarantide. qofka mu'minkaahi waa inuu carabkiisa waardiyeeyaa, waa inuu ka waardiyeeyo mu'miniinta dhibkooda, dadka ahlu iimaanka dhibkooda waa inuu ka waardiyeeyo. haddii aadan sidaa samaynin, cibaadadii wanaagsaneed oo aad la timid qiyaamaha ajarka heli maysida, khalqigaas kaloo dhibtayaa la kala siinayaa. markaasaad waxaad noqonaysaa qof faqiir ah, waxaad la mid noqonaysaa adoo cibaado wanaagsan adduunka la yimid adoon cibaadadii la imaanin oo kale. maxaa yeeley cibaadadu xasanaad ay leedahay, xasanaadkaas ayaa waxaa la siinayaa dadkii aad carabkaaga ka joojin weysay adduunka markaad joogtay. wuxuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ina almuflisa min ummatii, qofka faqiirka ah oo muxuu ahay cayrtaah oo ummadeyda ka midihi waa midka ya'ti yimaada yowma alqiyaama, maalinta qiyaamaha, bisalaatin wa siyaamin wa zakaa, wuxuu la imaanayaa cibaado sharaf leh oo salaad iyo soom iyo zaka ah. wayaأtii waqad shatama haada waqadafa haada waakala maada haada wasafaka dama haada wadaraba haada. markaasaa waxaa imaanaya markuu cibaadadii wanaagsaneed la yimaado dad ou dhib ka galay adduunka. waxaa imaanaya qof ou caayey, waxaa imaanaya midou qadfay oo uu ku tilmaamay inuusan dhowrsanayn, waxaa imaanaya midou xoolihiisii cunay, waxaa imaanaya midou dhiiggiisa xaqdarri ku daadiyey, waxaa imaanaya miduu dilay. fa yucdaa haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi. midkii yimaadaba cibaadadii wanaagsaneed oo qofkaani adduunka uu la yimid, xasanaadkii iyo ajarkii uu ka heli lahaa ayaa la siinayaa qofkii wax ku sheegtaba. fa in faniyat xasanaatuhu qabla an yuqdaa maa calayhi, haddii xasanaadkiisii iyo ajarkiisii dhammaado wixii lagu lahay intaan laga wada gudin, ukhida min khadaayaahum fadurixat calayhi uma durixa fi nnaar, waxaa laga qaadaa dunuubtoodii iyo gafafkoodii inta laga qaado yaa waxaa la saaraa asaga dushiisa, markaasaa cadaabka lagula ridaa asagoo ku raran dembigii dadka kale la yimaadeen. bal dhibaatada soo gaartay fiiri, iyo wanaaggii uu adduunka inta la yimid uu iska halleeyey, waa dhibaato aada u weyn. diinta islaamku marka wax aada u culus ayay ku tilmaantay qadafka waxa la yidhaahdo
oo mawduuca aan ka hadlayno ah, ama rag ha la qadfo ama dumar ha la qadfe. sidaa darteeda ilaahay subxaanahu wa tacaala xad ku waajibiyey qofka qaadifka. waa xadkii aan soo sheegnay oo ah 80 jeedal in la saaro, haddana aan la aqbalin markhaatigiisa, misena uu yahay qof faasiqahoo ilaahay uu ku tilmaamay inuu fisqi ku sugan yahay. waxaa la yidhaahdaa xaddaas waxaa loo sameeyey dhibaato inaysan dadka muslimiinta kala gaarin, oo qofkan dembiga gelayaana uu ka fakado dembigii uu geli lahay oo aakhiro dhibaatada weyn uga imaan lahayd, midka la dhibayaana dhibkii uu ka fakan lahaa. xaddu labadaas shay bay faa'iidaysaa. waxyaabaha ka ratibma marka xaddaas la fuliyo waxaa ka mid a mancu taraami bilfaaxisha, inaan dadku iska dhihin oon qof layska dhihin zinaad la timid oo aan lagu gamin zino. maxaa yeelay qofkii zina qof kale ku tilmaama 4 markhaatiyaha laga rabaa. 4taas hadduu keeni waayana waxaa sugaysa 3 xugum ayaa sugaysa, oo midna 80 karbaashaheed, midna ay ahayd inaan markhaatigiisa la aqbalaynin, midna ay tahay in muxuu ahaa qofkaasi faasiq yahay. waxaa kaloo faa'iidaho ku sugan xadda qofkii sidaas sameeyey lagu xadayo. waxaa faa'iidaho ku sugan siyaanatu acraadi annaas can ilintihaaki wa ximaayatu sumcatihim min atadniis. dadka nasabkooda inaan la qararin, sumcadoodana aan la wasakhaynin ayaa ku sugan. maxaa yeelay qofkii intaa ku tallaabsadaahi wuxuu noqonayaa qof xaddaas mutay. ka cabsashada uu qofku xadka ka cabsanayo ayaa ummadda nasabkooda iyo dadkuna ay uga nabadgelayaan. waxaa mararka qaarkood dhacda addacnu fi nasab inuu keeno in laysdagaalo oo meeshii geeriye timaado, oo dunuubtii asaga kasii waaweyneed ay iyaguna yimaadaan. marka xaddu way hor istaagaysaa, waana wax aad u wanaagsan. waxaa kaloo faa'iidaho ku sugan oo xadda laga qaadanaya tansiihu ra'yi alcaam min an yasriya fiihi hada alqowl wa yasmacahu nnaas. mujtamaca ayaa laga fogeynayaa hadalkan in markasta dhegahooda uu ku dhaco. maxaa yeelay hadduu soo laalaabto warku oo la caadaysto, waxaa ka dhalanaysa dadka sufahada ahoon caqligoodu ku filayni inay ku dhiiradaan. dhiirananshahaas dembiga weyn lagu dhiiranayo ayaa ka imaanaya, waana dhib aad u weyn. qofka mu'minka naska qur'aanku wuxuu tilmaamayaa carabkiisa waxa soo mara in malag qorayo. maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. marka qof mu'mina haddaad tahay, waa inaad ka fakartaa waxa malaa'igtu kaa qorayaan oo lagu kaydaynayaa inay noqdaan wax kayd gala oo aakhira ku anfaca. taas macnaheedu waxa weeye inaad carabkaaga ka ilaalisid macsida inuu ku gaarsiiyo oo uu macsi ku geliyo, waa inaad ka ilaalisaa. wuxuu nabigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, qofku hadduusan carabkiisa waardiyeyn oo ereyga intuusan ku hadlin uusan ka fiirsan dhibka uu keeni karo, in qofkaasi halaagsanayo. xadiidka saxiixulmuslimka wuxuu rasuulkeenu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh, ina arajula la yatakalamu bilkalima maa yatabayanu fiiha yazilu biha fi nnaari abcada mima bayna almashriqi waalmaqrib. nin ayaa wuxuu ku hadlayaa kelimo, hal erey buu leeyahay. ereygaasna wuxuu ku hadlay asagoon ka fiirsanin dhibka ereygu leeyahay. yazilu biha fi nnaar abcada mima bayna almashriqi waalmaqrib. halkaas kelimo oo uusan ka fiirsan ayaa sababkeeda naarta loogu ridaya. markaasuu hoos naarta wuxuu ugu sii soconayaa muddo inta loo socdo qoraxdu meesha ka soo baxdo iyo meesha u dhacdo kalaa. riwaayo kalena waxay ahayd yahwi biha fi nnaar 70 khariifa, 70 sano meel loo socdo oo kale qadarkeeda ayuu naarta hoos ugu soconayaa halkaas kelimo oo uu yidhi. waxaa laga yaabaa markii uu ereygaas lahaa inuu islahay dadka kula fadhiya ka qosli, oo ayba u ahayd bacayaar iyo kaftan. asaguna wuxuu ku mutay kelimadaas in cadaabka ilaahay hoos loogu sii rido muddadaas dheer, walciyaadu billaah. marka waxaan u dardaarmaynaa mujtamaceenna carabkooda inay ka nasahaan dembiyadaas waaweyn oo aad u xun oo qadafku ka mid yahay. nas'alullaha asalaama walcaafiya. casharkeennu wuxuu ku egyahay halkaas.
wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.